maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta dib u dhigtay dacwada loo haysto wariye Cabdicasiis Gurbiye oo kamid ah wariyaasha ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan Goobjoog Media Group qareenada u doodaya wariye Cabdicasiis Gurbiye ayaa waxay sheegeen inay sameeyeen ishor istaag sharciga ku saabsan dacwada loo haysto wariye Cabdicasiis Gurbiye kadib markii ay cadeeyeen in aan loo isticmaali karin xeerka ciqaabta Soomaaliya qareenada u doodaya wariye Cabdicasiis iyo qaar kamid ah ururada suxufiyiinta ka jira gudaha dalka Soomaaliya ayaa si wada jir ah ula hadlay warbaahinta saakay waxa maxkamadda gobolka Banaadir la hor keenay wariye Cabdicasiis Gurbiye maxkamadda la soo saaray aniga qareenada difaaca ahaynay aadii wariyaha loo heestay waxaan ka sameynay isurtaag la xiriiro in wariyaha aan lagu eedeyn karin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ay tahay in lagu dhaqmo ama xaaladiisa maadaama uu yahay qof mihnadle ah ay nidaaminayo xeerka saxaafadda gaar ahaan qodobka 29aad ee xeerka saxaafadda sidoo kaleeto waxaan sameynay isurtaagyo sharci ah oo waafaqsan qodobka 105 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo dhamaantood la xiriiro sharci ahaanshaha eedda xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka uu ku soo oogay markii ay surtaaga sameeyeen xafiiska xeerlaaliyaha waa ka jawaabay waxay la ahaaday ayuu sheegay aragtidiisu ka dhibtay kadib markii dood dheer kadib maxkamaddu waxay go'aamisay in arintaas ayadu go'aan ka soo gaari doonto waxaan sugaynaa maxkamaddan go'aan ka sugaynaa ku saabsan eedda wariyaha loo heesto in dacwadeeda la sii wadi karo iyo inaan la sii wadi karin annaga waxaan qabnaa inaan eedda la sii wadi karin dacwadaas la sii wadi karin xeerlaalintuna waxay qabtaa in dacwadaas la sii wadi karo sidaas ayaana muxuu ahaay maxkamaddu go'aan looga sugaa waa maasantihiin maanta ay taariikhdu tahay 7 bisha 7 2020 waxa la dhageystay oo maxkamadda gobolka ay dhageysatay dacwadii loo haystay wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye iyadoo lagu soo eedeeyay laba qodob oo kala ah 269 iyo 328 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedahaasi waxay ahaayeen faafin warar been abuur ah iyo eedeyn aflagaado hay'ad garsoor annagoo ah qareenadii Cabdicasiis waxaan sameynay ishortaag sida uu sharcigu qabo si waafaqsan qodobka 105 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ishortaagaas wuxuu ahaa marka koowaad dastuurnimada dacwadan ayaan waxaan gelinay muxuu ahaa ishortaag dacwadan inay dastuuri ahayn sababtay tahay waxa ay taabanaysay xaq dastuuri ah oo muwaadinku leeyahay sida uu tilmaamayo qodobka 18aad ee dastuurka dalka sidoo kale qodobka 109aad faqradiisa 2 A iyo B ayaa tilmaamayo cidda iska leh hadii arrimo dastuur la isku qabsado iyo meesha la aadayo qodobka 2 oo ishortaaga wuxuu ahaa ikhtisaaska maxkamadda iyo cidda iska leh oo qaadaysa dacwadan inaysan ikhtisaas u lahayn maxkamadda gobolka oo ay tahay eedda la soo eedeeyay markii la fiiriyo ay ugu badan tahay 3 sano wax xabsi ka dhalan karo 3 sanana ay leedahay maxkamad degmo oo ay tahay maxkamadda degmada loo celiyo hadii dacwo la qaadayo qodobka 3aad wuxuu ahaa mid la xiriira arinta saxaafadda oo ah maadaama Cabdicasiis uu yahay wariye ka shaqeeyo muxuu ahaa saxaafad in loo celiyo xeerka saxaafadda Soomaaliyeed oo dhaqangal ah qodobkiisa 29aad ayaana sheegaya habraaca loo marayo eedeynta wariyaha waxaan nasiib darro ah in 3 jeer la bedelay qodobada eedaha ah ee Cabdicasiis Gurbiye loo soo jeedinay markii ugu dambeysana waxay ahayd 30kii bishii hadda dhamaatay Juun oo qodobada lagu bedelay laba qodob oo uu ka mid yahay 269 iyo 328 oo sheegaya faafin been waxaan saaka ku faraxsanahay in la qareenadeena ay challenge gareeyeen oo ay hor istaageen dacwadda oo ayna ku maaragtay daliileen maxkamaddu inaysan awood u lahayn inay gasho eedan iyo dacwadahan ay gasho waxa meeshaas rabaa marka inaan ku daro yaanan la wareerin dacwadda ka dhanka Cabdicasiis Gurbiye eedaha waxay ka socdaan xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya runtii waxaan
rabnaa inaan taageerno go'aanka ay isku hor istaageen objectionka ay hordhigeen maxkamadda qareennada kale ah daahir maxamed cali axmed cabdiraxmaan diiriye iyo mawliid mataan salaad saddexdaasi qareen waxay si sharciga u sheegeen inay dacwaddan aanay rasmi ahayn oo aan la geli karin taasaanan taageersannahay sababtoo ah kuma qotonto oo waxay taabanaysaa xaq dastuuri ah waxaa sidoo kale aan aad uga xunnahay qodobada la soo qaatay ee 328 iyo 269 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed inaan lagu qaadi karin wariye sababtoo ah horay madaxweynaha Soomaaliya sidaad ogtihiin 3 bishii May ayuu wuxuu soo saaray inaan lagu xukumi karin wariye xeer ciqaabeed madaxweynaha soo saaray 3 May haddaan ka soo tagnay Soomaaliya waa meesha ugu khatarta badan ee uu ka shaqeeyo qof wariyaha gaar ahaan gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo gobolada dalka weli dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa gacanta ugu jiro oo aan cadaalad helin wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja oo asna kamid ah wariyaasha ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya